waxay leeyihiin maxamuud waxa la geeyay sangub baa loo dhiibay oo waxa laga dajiyay jigjiga aabaha anagu maanan oranin hala geeyo xaj maanan rabin maanan ku tala jirin aabay waxaan u sanayaa nin iska celin kara ma aha lug buu ka cabanayay lug baa jabnay waxa la geeyay sacuudiga markii la geeyay aabahay anagii waxay noqotay arrin ugu maaragtay oday sidaa u xanuunsanaya dowladda Soomaaliya inay xil aad isaga saarinay dhahdo arano codsiga meeshu ka yimid cid codsatay waxba igama gelin aabay xanuunsan baa la geeyay magaalada Maka marka hadda dowladda Soomaaliya waxa ma oranaya laakiin aabay xanuunsan bay geeyeen barnaamijka soo socday la yiraahdo hana qeexin wuxuu diiradda saarayaa Maxamuud Cabdullaahi Singub waa abwaankeennii qaran oo magaalada Muqdisho laga aftuubay abwaan Maxamuud Cabdullaahi Singub waxa laga dajiyay isagoo aftuuba magaalada Jigjiga waxaan idin wadaagi doonaa aftuubkaasi sida uu dhacay iyo sida loo fuliyay iyo shakhsiyaadka fuliyay waan idin wadaagi doonaa waxaan aad uga xunahay inaanu arrintaas wararkaas aan idin soo gudbino laakiin waxa jira waxaanu ku qasbanahay inaan ummadda la wadaago abwaankeennii weynaa waa Maxamuud Cabdullaahi Singub wuu xanuunsanayay anigu ayaana booqday oo aan waraysi ka soo qaaday wuu iska fiicnaa laakiin waxaad moodaysay xoogaa in uunan arrimaha qaar laga baqarinayay waxaan waliba idin la wadaagayaa gabadh isaga dumaashidii ah oo dhimatay oo qola Mooryaani dileen waa maalinka aan waraysiga ka qaaday Maxamuud Cabdullaahi Singub oo tacsideeda loo fadhiyay Maxamuud Cabdullaahi Singub waa laga qariyay aniga la soo qaaday hoosta laga gujiyay haw sheegin baa leey waxa laga yaabanaa inay caafimaadkiisa wax gaarsiiso isku soo wada duub Maxamuud Cabdullaahi Singub waxa la yiri waxa lagu geynayaa xashka waad soo cimraysanaysaa baa lagu kaxeeyay ka bacdi waxa laga dajiyay Jigjiga Maxamuud Cabdullaahi Singub yaa la aftuubay mise lama aftuubin waxay u badan tahay wararka la helaya in la aftuubay haddaan ahay dhaka weyne media waxaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa in marar badan Maxamuud Cabdullaahi Singub laga marti qaaday magaalada Jigjiga oo uu diiday waa inay ilay uu yiri ma imanayo Singub waxa loogu taag waayay inuu Jigjiga tago waa loo yeeray waa 10 mar wuxuu yaanu Soomaali baana isku soo wada duubo markii u dambeysay waana si darro Singub oo aan ogeyn in Jigjiga laga dajiyo arrintaas ma dambi baa ma deel qaaf baa miyay saxan tahay idinka Soomaaliya ka jawaabi doona mid kaliya aan ugu idin sheegaya abwaankeennii qaran Maxamuud Cabdullaahi Singub isagoo raalli ka ahayn inuu sogaaday inuu Jigjiga joogo isku soo wada duub Jigjiga waa dhul Soomaaliyeed bale iyo baas midna kuma og laakiin takaliyan huba waxay tahay Singub inaanu doonayn inuu Jigjiga tago ruuxna wuxuu doonayn lagu maqasbo aakhirkiina Maxamuud Cabdullaahi Singub halkan aad joogta miyaad garan markaasuu yiri waa Muqdisho waa xamar weyne saalay maaha waa Jigjiga arrintaas aad uga nax waxa weeyaan waxa qalad ah in maaragtay abwaan dhiirana uu maanta soo galo la soo diro oo isagoo aabay ka hadlay Singub baa la afduubay waxa loogu sheekay xajka lagu geeyay Singub see loo afduubay anaga nool wuxuu dhalay oo dhan baa halkan jooga he does not need anybody inna uma baahna aabay inna uma baahna aan ilaahay waxa kaliya uu bulshada Soomaaliyeed uga baahan yahay waa duco wada ogtiin ilaa 2016 kii waxaan xanuunsanaya aabay wiignu fiican yahay wiignu iska xanuunsanaya waa ruux macaan leh waa ruux dhikar leh aabay misig baa jabtay markii la keenayay way jabnayd waxa laga soo qaaday Soomaaliya isagoo jaban dawladda Soomaaliya canaanteeda leedahay oday weyn oo jaban in la keeno ma aha Mako isagoo jaban baa la keenay aabay aabay uu jabnaa dawladda Soomaaliya arinta waxa weeyaan nalgalameena tashanin waxba namayna weydiinin isagoo lugta jabanta la keenay cimradii xataa muuna marin aabay muuna cimraysanin xanuunkii bishii May 31 ayaa la geeyay dhakhtarka waxa laga soo saaray maalintuu soo baxay 2 cisho ka hor waxa uu xanuunsanaa uu ku jiray malaha 14 cisho dhakhtarka
عمرنا مونا أركن وإحنا مونا أركن ونحن سنة أنت عدا أريماس وجود بوحلية هاي وربا شيء يا أولي نينك أبوانك أها سنجوب أها جيجيجو أنت اللي يري حكى لوجيني وصاع عمرنا صباح أيام مركي هالكا لولد دولي لسوور يجي وجيجيجو فتق لقسي بوجي أو قري نينك صدق يتوبي هجر نروح ويري وحينو متقانا وليجين هذين أفرق قفوت نينكي قاعدة يا عالكي نوره وهدي أنا صار نقول الله يكون نبضيل كامل عوالي نينكي أهم حس عوكاها قبل سنة حاجة على بحصنا هاي إيو محمد عبد الله سنكو أفر تاسي توب يولد هذيش عوكا وين لقين كامل عوالنا وين لقين سنقو بنا حدا اللي قيمة لليه ماشي واحد من واسين بحاجة على بحثة أرنتا هذا يجتو إنه سديدنو سنقو بسكحين وسكحانون صدي وأساسقي ما فنين عافمات كستامية ما هاي هدي انت لقا قاضي حمر تجيجي لقيو يرون ايتهاي وحي كهوري ماني صدر دارين كي اوكشيغي او يري عميل على إتوبيا كتاغي هيان ليقو عاصر qofku markuu caafimaad qabo wuxuu ku dardaarmo aabaha ay uga ahna waa la aqbalaa ninkaan nin haliyay waxa weligii diiday inuu gumaysiga raaco oo wax kasta lagu gorgoriyay ana waxaan dhigaa Soomaaliyeedu abwaansagu waa qalbi dhagax tuu aynu garab istaagno abwaansagu aynu badqabkiisa ka shaqeyno lacagna ha loo aruuriyo caafimaad hindiya ama dibadaha kale Turkiga ha loo qaado halka ha lagu soo dabiibo billaah tawfiiq dar cusub wuxuu leeyahay dabaysha geedaha uma ruuxdo inay ciyaarsiiso hadduu aan laha maanta maartay ruux oo caafimaad qabo waxa laga yaabay lahaa inuu weligii xamar ka tageen xamar inuusan ka tageen baa laga yaabaa aabahay he loves xamar he loves muqdisho he loves to be around hobolada waaberi wuu jecel yahay waxaana hay naftii hore waxaana hay naftii hore naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabab lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabab lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro hallaayoon ku nabadgeli nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro hallaayoon ku nabadgeli
waxaanahay naftii hore waxaanahay naftii hore manasa oo habeen qudha nafisuma casheeye naaquudayaashii nacabkaan ilaasha haddii nabaad la waayana dhan kastaba noqote nacasiga ma lidin helo naxariisna uma galo manasa oo habeen qudha nafisuma casheeye naaquudayaashii nacabkaan ilaasha haddii nabaad la waayana dhan kastaba noqote nacasiga ma lidin helo naxariisna uma galo midar baan hore u galay niyadaydu waa meel midar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli midar baan hore u galay niyadaydu waa meel midar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli